waxay isku gubtay si arxan darra ah oo aad iyo aad u xanuun badan. aad baana u xanuunsatay walaasheen. isbitaalka Hargeysa ayay ku jirtay. كشوق الليالي لضوء القمر كشوق الليالي لضوء القمر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمانتي مال كستا أدونك كجوجتان وصاحب كينسيكي أو الحاجة أو إذا لا إسكو سو نقد وناكسن أو اللي بحسن لو عكوري جيني أدوك عفمات قبلنا صلابتي سنة عنو عفمات قبرتاد وصلابتي إلهي بابا دسكله واي هاي صاحب يال إنتان مقال كان كهالي أن جودي قلين وحن ربا هل إلا بهرت إنان dhalinyaradan reer Facebook aan iraado saaxiibayaal muuqaalka markaan soo geliyo isla markaa asagoo dhameystiran aad iga soo dabagelinaysan joojiya waayo muuqaalka saa markaa u soo geliyo haddana markiiba iga soo dabagelisaan 15 kun markay Facebook ka aragto ma kula tahay YouTube inay mar kale ka daawanayaan no daatada iskama qasaaranayaan marka waxaan ku soo indha madoobaaday aan ku soo daalay markiiba ha iga soo dabagelinina walba maalinta kala soo gashta maanta markaan soo geliyo bariyo kala soo gashta si ixtiraam leh ayaan kaga codsanaya haddaa diidaan soo maaha wejigii kale copyright-ka diyaar u noqonaya inoo bilaabo muuqaalka maanta aan ka hadlayo sida thumbnail-ka aan ka aragtaan waa muuqaal muurigiisa wata run ahaantii subxaanallah inantii mahraan ee isgubtay ugu dambeyn waa geeriyootay dabkii ay isku gubtay ayaanay sababsatay maanta inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun gabadha walaasheena ilaahay ha u naxariisto iyadii ehladii qaraabadii ka geeriyootay ilaahay qalbiga ha u qaboojiyo muuqaalkeeda markuu iga hor imaanayay haddaay run ahaantii waa fiiriyey waa baaray aad iyo aada uga naxay run ahaantii aada uga naxay u go'do oo ay u dhimato inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun kullu nafsin daa'iqatul mawt inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun sanadadii ugu dambeeyay Soomaalideena waxa ku soo badanaya gabdhaha isdilaaya nafsadana iyagoo isdhaafinaya qaar dab isku gubay sida maanta mahraan ay samaysay oo kale iyo qaar isdaldelay oo nafsada isdhaafiya ayaa bariyaha inagu soo badanaya muuqaalkan waxaa rabaa walaal gabadh kasta oo Soomaaliyeed oo aad taqaanid ilaahay baan kugu dhaariyay inaad u sheer gareysid si ma taqaanaya xadiiskani uu badbaado ugu noqdo qalbigeedana uu u qooyo walaashay macaanay horta waxaan ilaahay ka baryaynaa inuu ilaahay walaashan u naxariisto xaqiiqdii waxa ay isku gubtay si arxan darra ah oo aad iyo aad u xanuun badan aad baana u xanuunsatay walaasheen isbitaalka Hargeysa ayay ku jirtay xanuunka dabcan soo ku sheegay wiilka walaalkeena ku leeyahay si arxan darra isku gubtay dabcan qalbigeeda iyo duruufta markaa ku kaliftayna way ka xanuun badan tahay yani inaan dhinacan kaliya aan fiirino maaha yani sheeko markaa aragto mar there's always two side mar kasta laba dhinaca jirto run ahaantii san ku maqlay gabadha family problem yani in familkeeda siiba aabaheed ayaa waxaa la yiri gabadha wax ayan jeclaysan ayuu yiri saan maqlay ma hubo laakiin waxaa la yiri kuma dhalin miya intuu xanaaqay waalidku iska taqaanaa eray caynkaas oo kale uu yiri baa la yiri eraygaas bay ka carootay eraygaasana keenay in ay gabadh isgubto sida kale gabadhan waxa aheeda lagu leeyahay gabar aad iyo aad u qalbi wanaagsan social media qaab wanaagsan ku joogta xirfadeeda ku joogta in koofeer ay haysataan jeclahay saan ku maqlay sheekada marka family problem hadaa marba maqasho dhibaatooyinka familka waa kuwa ugu xanuunka badan wallahi been ku sheegi maayo hadaa aragta marka qof la dhiban qof social media intuu yimaado oynayo oo qof familkiisa ah ka cabanaya isla markii anaga waa jajgareynayna waxaan leenahay haye qofkan waa soo cali sidii gabadhii fanaanada ahayd oo TikTok joogtay oo familkeeda ka cabanaysay waxaan leenahay wuu soo cabay qofkan stresska qurbaha haya bini aadan noocaas waay ma fakireyno ma isdhahayno war hooy masiiba markay kaa maqan tahay walaalkaay ku maqan tahay ee marka qof caynkaas oo kala aragtid u ducee ama afkaaga ka xiro ka aamus ma naqaano TikTok haddaan ku aragno qof qalbiga ku holcaya ay familkiisa ciileen ama familkiisa wax u qabteen jisaar ku noqdeen ama si un familkiisa u dhibaateeyaan ilaa dadku ma wada wanaagsana familiyada walaalaha waalidiinta kulligood ma aha kuwa wanaagsan qaar baa xun ogow wax ka xanuun badanna ma jiro
qofkii aad ku carari lahayd nolosha markaad dhibaato dareento isaga hadduu dhibaato kugu beerayo u fiirso nolosha markaad xanuun dareento dee familkaaga qof aad ku cararaysaa aad micin bidaysaa ama aabbaha ama hooyada ama walaalaha ayaga haddee cuqdada iyo xanuunka kugu beerayaan ka war taw carare anigu lama yaabayo marka haddaan arko qof la leeyahay family problem haysta waa isgubay dabaqu iska soo tuuray lama yaabayo waa u duceynayaa halka Soomaalidiinaan aad taqaanaan qofka inaad iska jooj garanaysaan oo drugs buu bartay iyo stress baa ku dhacay yahoo social media hadda ku aragto qof magac leh iyo qof aan lahaynba oo familkiisa ka cabanaya number 1 u duceey hadii kale ka aamus walaalo waayo masiiba markay ka maqan tahay qof kale walaalkaaga ay agtiisa joogtaa dadka noocaas u hadla ee ayuu qoslaya jaahiliinta ah ee kumentiyada dadka dhibaatada haysta u qora wallahi you are next haday ku wacneed ilaahay adoo ku soo dhigaya masiibada caynkaas oo kala tomorrow marka gabadhan walaashay anigu lama yaabayo horta ilaahay baa u qadaray sidaa oo inay saa ku baxdo ilaahay baa qoray maalinta caloosha hooyadeed ay ku jirtay laakiin waxa igu maqaala inay gabar wanaagsan ahayd waxaan maqlay waliba hooyadeed wallahi kaligeed bay ka haystaa maqlay hooyo macaan ilaahay qalbiga ku qaboojiyo aniga iyo dadka idaawada oo muuqaalkan uu gaari doono kumanaanka ah boqolaalka kun waxaan ku leenahay ilaahay qalbiga ku qaboojiyo hooyo macaan waxaan waa adduunyo lisma siinin adduunyadan lisma siinin qof walba maalin uu ka tagaya aniga hortiina fadhiyo maalin baa la markaa hooyo ilaahay qalbiga ku qaboojiyo waa ka ay maanta u geeriyootay qof arkay baana ka sheekeen kara dhibta ay la kulantay walaashin Maharaan cara ka kacday mataqaanay ayadu xanaaqday ayaanay isku gubtay la garan maayo ilaa iyo hadda wixii ka xanaajiyay laakiin inay xanaaqday oo ay isgubtay baa la og yahay nolosha adduunyada ay ka jeclaysatay inay dhaaftaba oo ay dhimato walaashay waxaad ogsoonataa horta nafsadaadu qaali inay tahay sidoo kale waxaad ogsoonataa nabigeena Muhammad sallallahu alayhi wa sallam inuu ahadiis aad u fara badan uu ka sheegay kuwa nafsadu yani walaalo Allah u naxariisto ilaahay baa ofsaday adoo kula hadlaya yarka dhageyso adigoo qofka la hadlaya xadiiska loo soo qaatay waayo waxa jira hadda xilligan hadda muuqaalka aad daawanaysid waxa jiri kara dad fara badan oo dhibaatada abaaya ku baxdo kale xilligan hadda ku dhex jira dila waxa u sugnaanaya nolosha dambe ee aakhiro ilaahay naxariistiisu meel ayay taala waana taan u rajeynayna walaashin insha Allah biidmillahi kariim bas walaashayda noolay waxaad ogaataa rasuulkeena Muhammad sallallahu alayhi wa sallam inuu dhahay man qatala nafsahu bi shay'in fi dunya udhiba bihi yawm al-qiyamah qofkii nafsadiisa shay ku dila waad iskubtay amba waa isdaldashay amba midi ayaad iskilisay shaygaas oo baana aakhira lagu cadaabaya oo ilaahay subhanahu wa ta'ala oo kugu imtixaanaya nafsadaadu qaali weeye hadaad xanaaqdo adduunkan wax walba waad arkaysaa hadaad gabar tahayna ilaahay waa qafuur rahiim isaga nagu og marxalad kasta walaasheen waxaan leenahay kulli ayada og xanuunka adduunkan ay ku dareemaysay ay ku kaliftay nolosheedii macaanta badneed inay isdhaafiso adduunka qofna kuma dhiiranayo noloshiisa macaanta badan inuu isdhaafiyo we all know anaga dhan waa ognahay nafafkeena sa u jecelnahay runta marka la isku sheego marka saaxiibayaal ilaahay walaalo waxaan uga baryaynaa janno firdaws inuu geeyo ehelka iyo qaraabada ay ka gooriyootayna waxaan leenahay iyo saaxiibadii qalbiga Allah idin qaboojiyo u duceeyo insha Allah كشوق الليالي لضوء القمر كشوق الليالي لضوء القمر